أحمد الله إلهي ذا الكرم حمد ماض في زحام من نعم ملتقى الشبل لتعزيز القيم ملتقى يسعى إلى أعلى القمم مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا ضيوفا شرفونا كالديم في العلا والمجد كونوا شامة واحفظوا الدين وأوطان الشيم في محياكم براءة السنين حبكم في كل قلب كالهرم وطن الخير حبيب فانهضوا واحفظوا أمجاده بين الأمم كل شبر في ثراه آمل وحضارات وماضي يحترم لك يا شبل سلام عاطر وسطور خطها نبض القلم ولك البسمات من بصماتنا في عطاء الروح حبا وكرم أحمد الله إلهي ذا الكرم حمد ماض في زحام من نعم ملتقى الشبل لتعزيز القيم ملتقى يسعى إلى أعلى القمم مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا ضيوفا شرفونا كالديم مرحبا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان dadka walaalaha oo meesha iskugu imaaday oo ka kooban culimada madaxda countiga laga doortay MCS kana la joogo oo kamid yahay MCA-ga Waagbari waxa weeye walaalkeen aadan oo kamid yahay MCA-ga laga soo doortay Caalbeen walaalkeen Yuusuf oo kamid yahay MCA-ga laga soo doortay Township walaalkeen Mahad oo kamid yahay MCA-ga laga soo doortay Sarmaan walaalkeen Nuur khayr Allah idin siiya afartan nin ayaa nala joogaan culamadeennii ayaa nala joogto oo kamid yahay Sheekh Daawud Guuliye Sheekh Cabdalla Al-Aamiri Sheekh Shucayb Sheekh Cabduladiif Isxaaq Buudow iyo uu kamid yahay walaalkeen Sheekhana خير الله سي شيخ بري إلهي سبحانه وتعالى إذن بركية maanta waxaan joognaa xafladooyinkii la dhigi jiray ka duwan haddii aan awal hore arki jirnay xaflad quraan lagu tartamay haddii aan arki jirnay xaflad machadeed haddii aan arki jirnay luqadda carabiga macad lagu barto haddii aan arki jirnay khadka carabiga oo lagu barto maanta hawsha way ka duwan tahay hawshan waxaan u jeedaa waxa way hortiina fadhiya waa culimadii ducaadi magaalada oo macallimiinta ahaa
macallimiinta dugsiyada dhigayay oo taxfiidyaha gacanta ku hayay oo masaajidada aimada ka ahay weeyaan waxa maanta la soo bandhigaya sida ku xusan laaixada gadaashiina macadkan waxa la yiraahdaa macadul imaam ad-duuri ayaa la yiraahdaa waxa lagu bartaa cilmiga tajwiidka iyo culumta quraanka iyo qiraa'aadka quraanka sidaad maqasheenba wuxuu ku soo degay dhowr xarfood ayuu ku soo degay ilaa 7 ilaa 10 si kala duwan ayaa waxa weeyaan nabiga oo saxaabada u bari calayhi salaatu wasalaam raggan maanta tajwiidkii awal hore magaalada waxa u badnaay hal riwaayo oo riwaayad xafsa liidada magaalada u badnayd haddana waxay nagu soo kordhiyeen qaybo badan ay nagu soo kordhiyeen marka cilmiga qiraa'aadka liidada cilmi lagu barta halkaan isaga cilmigaas waxa muallim ka ah oo mudarris ka ah sheekhuna al-faadil ninka walaalkeena oo la yiraahdo khayr allah siiya sheekh nuux Abbas raggi wuxuu ka mid ahaa madrasada maaragtay magaalada ka baxay madaarista cilmiga magaalada ka bartay khaasatan madrasada ictisaam ka baxay kadib jaamacadda aaday cilmigan si gooni ah tarkiiska u saaray ee haddana la soo gadoomay bulshada u keenay isaga iyo rag badan ayaa jiraan xafladan laakiin iyo macadkan ninka mudarriska ka ah oo macallinka ka ah waa isaga ugu horeyntii marka waxaan soo dhaweynaynaa xafladeena ku furfurnaynaa waxa lagu furfurto waxa ugu wanaagsan آيات القرآن كأهو نأخذ دون ولكن معلم نور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد إن شاء الله تبارك وتعالى وحير تفاصيل يعني نكبحنا معهدك الإمام الدوري لتعليم القرآن الكريم وتلقي القراءات. معهد الإمام الدوري لتعليم القرآن الكريم وتلقي القراءات وحال أساسي كن أفربغل أفرتن يسدح بشكوبات محرم مركي أهد تاريخ طبعا أيوة فقسان لما كن لباتنيكو بش سديدات تاريخ سديدي طبعا معهد كعلوم تلاقيها لا الوبرت وحوي
سيدا كتب التجويد كتب التجويد أي لغو برتا سيدا كتاب كليراده تحفة الأطفال والغلمان للإمام سليمان الجمزوري سيدا أكل وحلقو برتا منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه للإمام ابن الجزري سيدا أكل وحلقو برتا القراءات قرؤين كأي لغو برتا سيدي قراءة الإمام نافع المدني ابن كثير المكي أبو عمرو البصري وابن عامر الشامي عاصم والكسائي من الكوفة سيدا ذكر القراءات الثلاثة المتممة للعشر سيدا قراءة أبو جعفر المدني يعقوب البصري خلف العاشر انت ومعهدك وعبرشديسي وحي الوبرته معهدك انت ففاهمتيسي وبالله التوفيق وجزاكم الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رئي أفتمارونه على ما يرى ولقد رئيه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى ولقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. السلام عليكم علماء الدمان ما شاء الله. waxaa mahad weyn leh culimmadii arrintan soo gabagabaysay oo soo gabagabaysay waxaana magac iyo sharaf noo ah gadaalkan dugsiyaasha madrasooyinka taxfiidka meesha lagu aqriyo kulli wajeer way soo badanayaan
marka waxaan leenahay culummada shaqo wanaagsan oo mid adduuni mid aakhirana anficays wadiin waa ku mahadsantiin hawshaas noo sii xoojiye anagana wixii garab iyo kaarme waan ku kabanahay bismillahir rahmanir rahiim alxamdulillahi rabbil aalamiin salaatu wassalaam ala rasuulillah sallallahu alayhi wasallam ma santahay mustabule MCA waa bari oo host MCS dhammaan waxaan salaamayaa marka hore culumadii maaragtay soo qaban qaabisay xafladan ay ardadan maaragtay qiraa'adka ku baratay macadka iyo ku soo qaybgalayaasha kala dhammaan assalaamu calaykum bacd salaam waxaan rabaa inaan horta inkaga hambalyeeyo waqtiga aad geliseen kalimaadka ilaahay waxay dhiirigelinaysaa qudaysho wanaagsan u tahay inta kale ayagana ilaahay ha waafajiye inay maaragtay ayagana waqtigii iyo qarashkii iyo maaragtay idinkaga baxay ayagana ay geliyaan oo wanaagaad dadku horseedeen marka hore waxaan idin leeyahay ilaahay idinka ajar siiyo aad ayaad u mahadsantiin marka xigta waxaan u malaynaa culummo ayaa kusoo dhabar adeegtay oo ayagana barnaamijkan inay maaragtay ugu faa'iideeyaan bulshada ay maaragtay ka tirsan yihiin ay ugu talagalay oo maaragtay waqti badan kusoo bixi una safray in culummadan maaragtay waqti ku qaataan marka waxaan leeyahay culummada ayageena way iska dhib badan tahay adduunyada hadda wax walba qarash la'aan iyo arrimo aan la wadi karin darteed baa iska jira waxaan leeyahay dulqaadta idinkan insha allahu tacaala sabarka badiyo oo noo sii wada hawshii wanaagsaneed ee noo wadeen asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu horta ani marka hore raalli ahaada maanta kulley marka hore waxaan rabnay inaan in la joogno laakiin waxaa dhacday maanta mashquul badan aa jira saddex xafladood oo kale ayaa nagala sugahayaa niman security ayaa joogo wasiirkoo la gariilgelin oo hata vice chairmankaas meehan jooga ayaa jira oo ay wiilal ku jiraan opposition leader Railana waa jooga maanta marka wixii kulliba marka waa nagala sugahayaa marka waa cudurdaar naga raali ahada midda kale anaka waxaan kuuba hambalyeynayna arrintan wanaaga badan noo wala dan ah anaka inaan wala qabanayaheed idinka gaar ahaan culummada tii haysiin oo is abaabulaysiin gadaalkaana waxa waaye waxyaalo badan oo la arkaynaa wajar ku soo kordhay xoogahoo diinta waa ka yar dambeynay laakiin alxamdulillah hadda waxa waaye waa hore ayaan u soconaa waan idin hambalyeynaynaa waan idin mahadcelinaynaa khayr Allah isiiya dadkii arrintan isku soo abaabulay macadkan hagaaji maskaxda lahayn ayakana waan u duceynaynaa si wada culumtii wax la baranay idinkana meeshii ida ugu tagana idinkana kulay wixii leen baray dhulka si gaarsiya wajeer kale ahna ma ahane unuku koraan ka yaray maadna dhulka nagala soo doortay bal si gaarsiya baash xasiif aftee السلام عليكم منكم dadka u dambe hadal kullu alla dhameystaa maqto nimankan kulli hadal ku dhameeyay anigana marka ma baan ku sidaahinaa waxaan arkaa arrimaha maanta meeshan la isku imaaday waa arrinta ugu fiicnaatay inaan joognayd labadan program kala Yusuf sheegay aan aadayna maxaa yeelay markaan iskuulku jirnay waxaan dhageysan jirnay cajala oo marabarkood magis dhageysata say quraanku akhrinaan magis aragtid aan la yaabi jirnay hadda wayna soo gaartay soma tiya inta imaadna marka macnaha haday lahjada lama subxaan Allah qira kala ayna dialect marka taas waa wax oo bulshada ku soo kordhamay oo aad u wanaagsan marka mid horeysa dadka xoogga saar inay diinta bartaan si ay noo keenaan arrimo ceenkaas camal ah horta aad ay u maadsiin dadka ayagana ama waalidahay ama culummo ka weynahay oo ayagana arrintiida ah ku hami inay aadaan oo shaqadan fiican soo qabtaan ayagana aad ay u maadsiin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا يعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا ولتجدن أقربهم مودة للذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا فمنهم بدور 7 قد توسطت سماء العلا والعدل زهرا وكملا لها شهب عنها استنارت فنورت سواد الدجى حتى تفرق وانجلى وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع 2 من أصحابه متمثلا تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا فأما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا وقالون عيسى ثم عثمان ورشهم بصحبته المجد الرفيع تأثلا ومكة عبد الله فيها مقامه هو ابن كثير كاثر القوم معتلى
روى أحمد البزي له ومحمد على سند وهو الملقب قنبلا. وأما الإمام المازني صريحهم أبو عمرو البصري فوالده العلا أفاض على يحيى اليزيدي سيبه فأذبح بالعذب الفرات معللا. أبو عمر الدوري وصالحهم أبو شعيب هو السوسي عنه تقبلا. وأما دمشق الشام دار بن عامر فتلك بعبد الله طابت محللا. هشام وعبد الله وهو انتسابه لذكوان بالإسناد عنه تنقلا. وبالكوفة الغراء منهم 3 أذاعوا فقد ضاعت شذا وقرنفلا. فأما أبو بكر وعاصم اسمه فشعبة راويه المبرز أفضلا. وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا وحفص وبالإتقان كان مفضلا. وحمزة ما أزكاه من متورع إماما صبورا للقرآن مرتلا. روى خلف عنه وخلاد الذي رواه سليم متقنا ومحصلا. وأما علي فالكسائي نعته لما كان في الإحرام فيه تسربلا. روى ليثهم أبو الحارث الرضا وحفص هو الدوري وفي الذكر قد خلا. باب الصفات. صفاتها جهر ورق مستفل منفتح مسمتة والضد قل مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجد قض بكت وبين رق والشديد للعمر وسبع علو خص ضاد قد حصر والصاد ضاد ضاء مطبقة وفي الضم اللب الحروف المطلقة صفيرها صاد وزاي صين قلقلة قطب جد واللين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صححا في اللام والراء وبتكرير جعل ولت في الششين ضاد استضل. باب التجويد. والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها ورد كل واحد لأصله واللفظ في نديره كمثله مكملا من غير ما تعصف باللطف في النطق بلا تعصف وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. أحكام النون الساكنة والتنوين للنون إن تسكن وللتنوين 4 أحكام فخذ تبييني. فالأول الإظهار قبل أحرف للحلق 6 رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء وثاني إدغام ب6 أتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغم فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كالدنيا ثم صنوان تلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waa aad waxaa farxad u ah xafladan halkan lagu qabani. xaflooyin badan baa lagu qabtay
oo noocyadooda ay kala duwan tahay horena waa loo sheegay laakiin middan waxaad moodaa waa awalu xaflatin oo nooceeda ku hor u ka bedelay waana arrin loo baahnaa in badan dadka qaar ay moodayaan wax cusub in la keenay waa qur'aankii la akhrinayay qiraa'aadkiisay oo imaaday hadda oona sii jiri waa wax muhiim ah maqnaa marka aquuna nuux وما شاء الله أرددي صومرت إحسام أيو كمدها جامعات قدنا سيء هذي بركا باب كان هذا أوكاننا وباب هذا أوفانكس سيثو أكتهين قرآن كان قميس إقايس وقرنيسا إلهي أيانا سود جيي نبي الله محمد كسو دجيي بواسطة جبريل عليه السلام من الله وكيم هذا جبريل معلن كيسو الله جبريل وحو معلن هذا أستنقد النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي محمد صحابة ديسو صحابة التابعين إلى ما أنت هول كان أجغني كإمات وهكذا الجيل بعد الجيل bay sidaa u soo warinayeen marka waa shay aad muhiim u ah kulli qiraa'aadkaas hadda noola soo bandhigay waa wax aad u qiimo badan axaadiista sababaha loo keenayna waxa waaye ummaddan inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankan si fudud ay ku qaataan oonan cariiri lagu gelin أحاديث بدن باكوسو أروتي موضوعا si ay dadka ugu fududaato hadbaqirida markaas ay luqada ay awoodaan xadiidka ahaa quraanka ala 7 ahruf xadiidka waa saxiix marka ma 7 xaraf baa lagu soo jimay 7 luqa lagu soo العلماء في اختلفوا لكن وحا آد أرنكاس إني لقوين كمدهين أما تصايا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه نلي هشام ابن حكيم ابن حزام يا عمر وحي لنكاس صورة الفرقان آخرنا أيام مغلي وحي انتو كآخرنا ينسوقوا ويي كصلاة وجكوناي سان جعله مركو كبحي سيد عمر رضي الله عنه مراديس دبكو سو سيلينكي و سو قفتي محو يلا قيرادنا اخرينا عمر نبي كما مقل وحاد مودي انه wax cusub oo quraan ku soo diray asoo wadaninkii marada ku xiray hogaaminaya ayuu nabiga u keenay sallallahu alayhi wasallam hadith oo macruuf wad garnaysa markaasuu nabiga barrinka daa rasuulka ilaahu ninkan oo wax haleynaya ayaan maqlay marka horta wuxuu yiri barrinka sida xargaas ku iyo marada kada maxaa dhacay wuxuu yiri waxaan maqlay suuratu furqaan oo adiga i akhrisay sidii u akhri adigu akhrisay inaad ku akhrina daybo dha marka akhri buu dhah uu akhriyay hakada unzilat siyaasa lagu soo dejiyay أذيقن آخر عمر هكذا أنزلت ساسا لغسو دجيي مركا دادك اللقات كوضا سيدي قرد قريش كنانة أسد يعني عربتو ويكل لقات كودي مركا تسهيل سي أمد أقف إلى قرآن إلهي وافدي ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر سي مركا عليسين أنو غني سيداس أيها حكموينك إلهي أسو دجي كمدا وأنا كو هذا أي رجي أي صوب من رجال جزاهم الله خيرا تساكمده فكوا أرين أد لوجو بهنا لون باهية إن الله سي وضل بلارينا إن شاء الله
ay maarta aad iyo aad ugu fiican tahay sidii dhulka dhan ay meelo badan kale waaba laga akhriyaa laakiin wajeer aad bay inoogu yeereen qiradaas xafsiga ayaa in badan la waday laakiin hadda dib lagu soo in la sii faafi insha Allah ta'ala aad iyo aad ay arrinkaas qiimo iyo qaayo u leedahay waana sunno fiican oo wanaagsan la jideeyay كل موضوع وموضوع عاد وبلارن رجعنا لنا مركور انتنا كلمة بلابن شيخ عيد ما دام عذر دارتي أنا علماء ما يفرد ذا وجعلنا لنا لكن إن شاء الله تعالى دي اللي في سحنا دم لها البوسكاس نقولي مارت ما نقاري بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم إخواني إن شاء الله تعالى أنا وأدي سكوب يرقي كلام نسوي الجندي هنبركوركم بالله بلا الشيخ عيدا فضيلة الشيخ عبد الله العامري تسالي سهري ودهي أما تلبحنتيسي أو إهاد إن موضوع لقد موضوع بالشو أنت كسو قيب قشو أنا هذا كارو حنو أركسي واقعية أرنت يقول عاد مركز جامعة الجوجي أي أمان بان قلم الأوذي قاري عاسان وضصارني أنا كمرك هجامني maxaan marka ninka darawalka hees dhageysana ku yiri quraan noo saar markaas uu yiri ajalad quraan ma haysto adigu wuxuu dhahay ma haysaa ilaahay amarkiis waxaan hayay ajalad Sheekh Cabdirashiid aan waday ijaabka iska watay marka waxaan ku yiri noo gali dabcan riwaayad Xafsa ma ahayn suurad Xujuraad oo akhrinayay marka kalimadan fatabayanu وحن ملاينا يا هدانا خلدنا الإمام حمزة كسائي خلف العاشر أي فتثبتوا آخرنيان أنت كلنا أي فتبينوا آخرنيان يا مرك مش سومرت شيخ مرك حيري فتثبتوا مركز داروا الكحيري حيث نكا قرآن كعير مش نجلس وأنا العرب هو ويلقيس قاهرة جوجي قلت صالح شيخ نسينا معنا فحكوا القرآن كم عيارينك وآخرنا بحيته وحنقول القرآن وآخرنا يا ننكي دود بانا قد عضيبة إن أنا أريد فهم سيه وكذا داعي وهي وقالتي أنت سافرت أوبدنت إيه ماشي أوسع أنت أنا جارين مركز دم بحجري حقوق مسارد الأزهر بكير الدم بيانه معناه بحجري وقراءات معترف من الأزهر مياه بقراءات الأزهر اعتراف سنتابا مركز هنقول ها شيخ وحير مركز مدينكي عجلدان إيسو دوب وفرزيا إيسو دوب مال فلان يقول كان إسور هذه سو أنا كوي إيماني مالك سو جوكت نك عجلدان إيسو دوبي سدح مال موت كدي مالها بشغل عن إسكها يعني عجلد وجي ماشي معك أنا شمرك ننكي علم أنا وكم أغنى قرآن كبوكا من سنين إنه كهلي تذكر ماشي فدي وحرم علينا ما تبع علومدي ونخبضي إلهي سبحانه وتعالى هنو داره يعني ومسألة بدنا دتك فكرت ما كود هاي سنة صباح لكن دتك لوبا هنا إني فهمان أرنتا ودتك إيجا على الأقل وفكرتها كقاتان أنت هذا كجبح الشيخ تعليق دي سؤال مهمة أير تعليق كذا كلمة دي سبب دردارن كيسي نور تاني وحندين شيء يا الله نعفي عيب الله تروي حد كورة وحيري الشيخ طبعا الشيخ نود هاجرين أرضي أود هنا وحيري الشيخ هنا شيخ عمري حدور عيب الله أستر ولا وضع حفظيها وحير مركز ساب له وضع جراه مركز هرت حير عيب الله أستر يمشي تاجت أنا هرت رنتي تخصص كيدي جامعة ده هرت شريعة إسلامي وها قراءات كما هن أفرت سنة جامعة كجري شريعة إسلامية كصبح مركز حواها قراءات كما ونحواها يربوس ونسكت كرمويان هرت أشمئه موضوع عن هذا المسجد حق لي كرا وانا علومدي سافر له لكن waxaan dhihi lahaa ikhwaani marka ruwaad la akhrinay ama macnaha quraada la sheegay waxaan arkaynay quraada 10 ah waa 10 qaari iyo 20 raawi Soomaa 10 marka mar waxa lagu magacaabaa culimada fadhide 10 suqra mar waxa la yiraahdaa 10 al-kubra marka dadka qaar waxay u haystaan 12 oo kala socotinay ومن حق وجار جرت من حق مماسة بينما أي تهال مرك اللي راس سقرا علماء بدنا وحيكون ضبط يعني وحي خلت إن شاء الله تعالى ولو فسحين اللي قبته
marka quraada iyo ruwaadooda la israaciya oo ka hadlaan shaatibiyada iyo durrada ay waxa loo yaqaan as-suqra lana labada kitaab badan waxa ka hadleen quraadi iyo ruwaadoodi marka kubra la yiraahana waa quraadi iyo ruwaadi iyo turuqdooda la israaciyay oo taybatu nashr ay ka hadash san marka hada arkaynay طبعا rag quraada way badnaayeen ruwaadana way badnaayeen laakiin ilaahay subhanahu wa ta'ala fadligiisa ragaan u dooray ayuu ikhtiyaarka ku dhacay rag nuqaad ah markay dadaaleen oo dhex galeen ragaan uu qalinka ku dhacay laakiin xaqiiqo waxa ah quraadana taban kuma koobneen ruwaadana 20 kuma koobneen waxa kale oo arkaynay rag quraada ah saddex wadan bay had u badnaayeen ama saddex meelood ay ka dhaxeeyeen Makka iyo Madiina iska dhaadiga macnaha jasiirada Carabiga iska dhig iyo Shaam iyo Masar iyo Iraq waxaana u badan waliba ahlul Iraq ba u badan markii tabankooda markii la qaybiyo qaybta ugu badan Basra iyo Kufa qaadanaysa Basra iyo Kufa ayaa la tigay macal asaf oo wadanka maanta arkaysiin meesha xaaladiis ay marayso marka ibn Amir oo Shaam ah marka waxaan qaybtaas aan ka soo wadaa macnaha mawduucan si galini riwaayat Hafs ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu si intishaar hada sacuudiga oo kale asal waxa uu ah ibn Kathir tosama soo makimeen marka asalaha waxa ay ahayd sacuudiga maanta qirada ugu badan oo la akhrinayo inay ahaato ibn Kathir masaarida oo kale imaam Warsh laakiin maanta waxaad arkaysaa Masar markaad joogto كل علماء بدنا وايد بتجاني dadka mutakhasisiinta ah iyo meelaha lagu bartamooyaan hal masaajid inaad aragtaa adag maanta oo riwaayad kale qeyr kale iska dhaaf riwaayad kale lagu dujini dhammaan waa xabsa sacuudi waa aragtay laakiin ma sheekay ibn Kathir hada maqal laga yaaba marka waxaan ku soo ururinayaa qiraa'adka intaan la gaarin waa loo baahan yahay laakiin ardayda خاصة القرآن كدميسي إيه معلمين هذا أرضي دي وحبري أو هوسه هرت حقوق في عنا كتب التجويد إن لقدس مركور كتب التجويد إن لقدس لبعض كتاب وهذا ما شاء الله قيبت أنا صوب بدي قدام بيسي تحفظي الجزرية ده ومراجع هذا كورة نيش أحمد علي جرو قارئها أماني وحنسيني دورة تحفظ النوبل لابي مركا التجويد في الإصطلاح والتعريفني markuu xogaa sheegay wuxuu yiri istilaaxa tajwiidka rasmiga marabtaan wuxuu dhahay huwa al-ma'luumaat al-mawjuuda am hiya al-ma'luumaat al-mawjuuda fi at-tuhfa wal-jazariyya wuxuu dhahay taariif tajwiidka laba jiro labada kitaab macluumaadka ku jirto oo la qaat oo la tatbiiqiyo wuxuu dhahay tajwiid waata marka horta waxaan isku daarbayna marka hore labada kitaab inaan meel saarno السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين علماءنا أيانا وعدسي عدار دارني أنا وعدي شيء مايو إلهي سبحانه وتعالى يا مركب كوباد ومهد علينا عليه إن معاذ وينك بدن لون معي أهل القرآن نقدي أهل إلهي نقدي حقيقة ووحد لو فرحة وواجب تهي إلهي إن لو مهد عليه سبحانه وتعالى فإن شكرتم لازيدنكم شكر جيدا وحاول إن لو عمل فله ومدن لسيجارسي وإن شاء الله تعالى وأتقن حديث النبي عليه الصلاة والسلام مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة ولغت الماموت إن القرآن كأقانة حافظي هاي هذا آخرنا هاي وتكو عمل فلا هاي وإن شاء الله تعالى ما هذا إلهي كذب وعنهم هذا علنا ولكن الشيخ نوح الله بركيه جزاه الله خيرا ذلك جهودا ووحي حقيقة ذلك بحنا يوحي خير بالنايوة وحانا جرتوا كتاب إلهي سبحانه وتعالى قفك دريا له وبركه بحقيقة
أساس إلهي بركي كتاب أنزلناه إليك مبارك وكتاب بركيسا وهنون وعافمات وشفاء يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور فرق حقيقة وحان كلمة ديدي كسو قابل إلهي سبحانه وتعالى نقوم هذنغنا وأنكو عمل فلنا عملك أيا مهمة اللي هو رقمه وحل برتي أهل القرآن لنقضه تدكي هذا لغي شيكي خير الله سي أردق آخرنا شاطبيده قرآن لغي شيكينا فمنهم بذور 7 قد توسطت فأما كريم الطيب في السر نافع ما سلق بالله إلى لقاره وحمزة ما أزكاه من متورع إماما صبورا للقرآن مرتلا مركوين تلماماس أنقاذنا إن شاء الله تعالى والله بحيو قيبت لبعض وحواي كتابك تحفها شهادتي صلى بحنيا أرضي حفظيين وختمين iyo waxa weeyaan shahaado tuxfa iyo jazariya isla socota marka quraanka ka bilaabayna waxaan kulli waa maanta xafladda waa ujeedo wax meesha ku xusan xaflatul ijaaza waa ijaaza lisina ijaazada nin walba sidaas u aqaana sabarkiis niman suufiya la dhaho ijaaza waxay leeyihiin xaq u joosal ah awalu khalifa marka maxaa la soo khalifa mushirki bid'a la soo khalifa سومجد تمركتي وكده وانتهى بلا نوغان وحي ماشان ku jiro maanta waxaan aad u jeclaanahay in waliba ijaazadan oo quraanka kariimka ah bi riwaayat Hafs an Aasim min dariiq ash-Shaatibiyya in la akhriyo aad ay u fiicneed si aan ogaano dadka meesha ku qor ilaa abtirka meesha isgalaya laakiin insha Allah ta'ala فافحنتان كدري دونا الله يدين بركي وتسالو علماء ربا inay isha mariyaan fiiriyaan tusaalo way khayr Allah idin siiya maxay wixii marxaatida ka tihiin aragteen waa inaad fiirisaan nin walbana tii loo dhiibay saa loo dhiibaa magaca ku qorana ka fiiriyo marka khayr Allah siiya waxaan ku hormarina marka qaybta ijaazada quraanka ayaan ku hormarina Allah idin barakeeyo waxaan u yeerayaa ardaydaas aan magacooda yeelin doona inay soo hormaraan khayr Allah idin siiya bis khayr Allah idin siiya sida oo kale tan waa ijaaza lagu bixiyay منظومة تحفة الأطفال للإمام سليمان الجمزوري سيد أكل الشهادة أن كلنا كل واحد رأينا العلماء أن وهرين تصورت تنوع حويا ولا بكتاب إجازة تحفها إيو وحويا جزرية لو بحلا بدو مركز علم مهم واي waxaan rabaa ardaydaas shahaadaadka la siinayo ijaazada inay soo hormaraan hore soo maraan khayr Allah isiiya Allah idin barakeeyo hore soo mara meesha hore soo istaaga Allah idin barakeeyo Abdurrahman Raxo Abdurrahman dhiman horta Hussein Shukri Ali Salat يوسف آدم محمود آدم محمد يوسف دقو علي عبد الرحمن وين علي إبراهيم عبدي دقان عثمان محمد خير
إلهي ذا الكرم حمد ماض في زحام من نعم ملتقى الشبل لتعزيز القيم ملتقى يسعى إلى أعلى القمم مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا ضيوفا شرفونا كالديم في العلا والمجد كونوا شامة واحفظوا الدين وأوطان الشيم في محياكم براءة السنين حبكم في كل قلب كالهرم وطن الخير حبيب فانهضوا واحفظوا أمجاده بين الأمم كل شبر في ثراه آمل وحضارات وماضي يحترم لك يا شبل سلام عاطر وسطور خطها نبض القلم ولك البسمات من بصماتنا في عطاء الروح حبا وكرم أحمد الله إلهي ذا الكرم حمد ماض في زحام من نعم ملتقى الشبل كلي واد garanaysan dad badan oo inta jooga culimaday weynaad oo Sheekh Cabdulle iyo Sheekh Daawid iyo culimadii intii kale la xiriirtay kamid tahay ay joogo quraada ay joogta ana xaaladeedu waa ayb la asturo laakiin alxamdulillah waxa barga farxadii waxaan ka soo baxanay macad Ictisaam oo Sheekh Nuux aska soo baxay ayaan anina ka soo baxon ka dhamay nin oo macadul maarid Ictisaam ka dhamay inaas cilmi qiraa'ad aswada barga magaalada wajeer xaflad laga dhigay waxa way sharaf weyn ay taariikh alxamdulillah إلهي ما هذا إسكاله الحمد لله أن كل يواد أكتين علم الوقت كرنيسين صحابة سايهاير يقول لحظم جرء أي شيء إسلام الجيران القرآن كبرين جيران أنا كان هذا إن لهذا يومه تاج أنا يجبران اللي دكسان اللي فريسان معلك على لماذا جس كجرني إذا حاجة يكسو يرني أنا حاجة كيرني لماذا نبلو حاجة على هايسان الحمد لله مركان دكسي جبادي بسول دمي أنا جبرتي دميني إذا أنا مدرسة الفتح يانجي أنا اعتصام أنقله لبضاين أدنى وابقنا الحمد لله مركا علماء يورت أنت نوسو الدلاشي نما ما عنده هذا وحاسر مركي علماء الشيخ عبد الله أسنوي ماذا لبا شيء وجر نوجه الرئيس أسير ولا شيء وقاتنا له عقيدة هورت فايديستان العقيدة نقول كناس له مثل لبض حاجة زي بالعنت الحجاب عقاتين ما بجرنا هذا واحد كوري شيخ عبد الله مركزي ماذي عقيدة والإسبرة يحجاب اللغات هذا ما أنت وح مارت ماشي عن فردنا وهذا كيس وحول برهذا يسقى مركا إلهي حبارك يا شيخ نوح قر الله كديجا دينتيسن النور الله وياله أنا شرف إيتاي مدرسة أنك صوبعي أنا سجن كصوبعي وأنت عرفت علم قال أنت سيجارسي أنا كان وقرب تاجنا بإذن الله تعالى إلهي تذكي مارتي علم عن برتنا الله وبارك هي كو آخر أدوم كفايديست الله وديك كو أمدك لو فايدي الله وديك markii tolka la dhahan in walba hadana tuulo gooni iyo meel gooni ah markii wixii oo meeshan aan ka qaadanay in la sii gudbiyo waxa kale oo jiri doona ramadaanka markuu dhamaado waa la soo sheegi doona barnaamij waxa la qalqaalinaya silsila fi cilm at-tajwid silsila oo cilm at-tajwid ku saabsan ayaa qaban qaabadeedii socotaa oo Sheekh Shucayb iyo rag la mid ah laba macallin ah marka Allah idin barakeeyo taasna ka sii warqaba dadka kor loo haayo waa la soo sheegi doonaa jazakumullahu khayr barakallahu fiikum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته وكتبه ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون